iskaashatada iskargooyinka gobolka Murudijeex ayaa ay weheliyaan xubno kamid ah mas'uuliyiinta amniga ee degmada Axmed Daga ayaa deeq kala duwan ku wareejiyay maayarka iyo maayarka caasimadda Soomaaliland Hargeysa kuwaas oo ay ugu talagaleen la gaarsiiyo ciidamada qaranka Soomaaliland ee jiida hore ugu horreynba goobta waxaa ka hadlay gudoomiyaha iskaashatada iskargooyinka Cabdisalaan Cabdilaahi Cali iyo xubno ka tirsan iskaashatadaasi iyo maayarka caasimadda Hargeysa iyo maayarka xigta golaha deegaanka iyo xogayaha gobolka Murudijeex arrinkii ayna fareen anagoo ajiibayna kana qayb qaadanayna gurmadka dalka uu ku jiro haday tahay dagaal iyo haday tahay duufaanada dalka ma garanaysaa masiibada ku habsatay labadaba anagoo ka gurmanayno ka qayb qaadanayna ayaanu soo ajiibnay madaxdu amarkeena fashtay anaguna aanu ka qayb qaadanayno ayaa waxaanu soo fulinay amarkii keenayna maanta gaadhi raashina oo ay saaran yihiin 100 gadbadood oo raashina sidaana aan ku dayn doonin keeni doona qaar waaweyn oo masaxan aanu keeni doona intan iyo labadoodba ka badan waxaanaanu diyaar u nahay dalka difaaciisa ayaanu difaac u nahay waxaanu nahay 1500 oo gaari baanu nahay oo dhamaldiif midhan iyo magaranaysa intiiba oo technique ah waxaanu ballan ku qaadaynaa dagaal dooni mayno oo dagaalka Ilaahay baanu ka magan galay oo waxaanu leenahay dagaalka joojiya dad islaam bayno bil rabadaan baynu ku jiraan dagaalka joojino hadaa joojin weydaan 1500 ee iska rogaba ballan baan ku qaadaynaa qoryaa soo saaro oo aanu ku difaacna dalka iyo dadkaba maayarka caasimadda Soomaaliland Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi Cagaweyne iyo maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay deeqdan ninba Allah wuxuu rag waxa ku maamul aqaan ama ku maamus masayna nahay tulma samarsan noo tahay mas'alaha nimaani dhigeen midig ma siinayo ninka aniga iga maarbi karo ugu naagay Somaliland waxa ku taatay dhiig Somaliland xoog iyo xiniyo iyo tacab baynu ku helay annagu cidna gardareysan mayno laakiin si cidda noo timaado waa iska celinayna Somaliland halkaana dadkii ku caawinaysa halkaana way isku difaaci kartaa iyo muxuu ahaa iskaashatooyinka iyo kulliinta ka soo jawaabaysa Somaliland dagaal uma diyaar aha Somaliland nabad bay doonaysaa nabad bay ku caanamaashay nabad bay diyaar u tahay waxaanu leenahay walaalahayo idima nacibnay nagama dhaxeeyo waxa weeyaan hadii la yiraahdo maanta hadii la yiraahdo halka wuxuu ka degan yihiin beelaha Somaliland dega halka waxay ka degan yihiin dibadaba hoosteeda halka waxay ka degan yihiin jigjigay ku dhow yihiin halka waxay ka degan yihiin meel walba ilaa meel degmo walba degmay ku beegantay hadii la yiraahdo isku haybaanu nahayo Somaliland bay noqonayaan ma soconayso Somaliland dad baa wada leh beelaheegu dhan way wada simayeen waka bogtino Cali Khaliif iyo muxuu ahaa ragii odayaasha xagla toosiyay iyo ragii ururada iyo soo sameeyay dawladahaba Somaliland waa kuwa wada mid ah Somaliland mid weeyi nabad bay doonaysaa waxaanu leenahay dawladda Soomaaliya ee dabada ka riixaysa maamulka Puntland waxaanu leenahay waa ka daaya waxa badi xal ma aha waxa weeyaan saako ugu dambeysay waxa la soo wareegay ciidanka qaranka Somaliland waxaan leeyahay geesiyaashii casharkii u dhigteen waa Ilaahay baa agtiisa ka helaysan mahad waxaan leeyahay waa Puntland maalin walba hadiyadu ma keenine ma jeclin dhiiga nimanka dhimanaya dhinacay doonaan haadane iyo hadiyada tidaan technikada waxaan leeyahay waa joojiya dagaalka joojiya waxaan leenahay ciidamadana waanu digaab taaganahay waxaan leeyahay shacbiga isbitaal walba lagu shuba dhiiga si dhaawac loo gaarsiiyo dhinaca inagoo ka caawinayna ciidankeeni iyo muxuu ahaa ciidankeeni dagaalka ku jiray qaranka dhinacaana waxaanu gacanta kalena waxaanu ku caawinaynaa maqaadiirtii Ilaahay keenay nagu timid ee duufaantii oo ka dhacday deegaanada xeebaha oo dhan waxaan leeyahay shacbiga Somaliland dhinacaana gacantaana taa ugu diyaargooba gacantaana taa kale ugu diyaargooba waana emergency Luqmaan Maxamed Farax Bulsha TV Hargeysa